isbitaalka Moa Aways International Hospital waa isbitaal caalami ah oo heerkiisu sareeyo ayaa mar kale lagu sameeyay qalabayn iyadoo sare loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba. Moa Aways International Hospital ayaa la gaarsiiyay heerka level 4 waan heer ka mid ah heerarka ugu sareeya ee isbitaalada guud ahaan dalka ku yaala. isbitaalka Moa Aways International Hospital ayaa lagu soo kordhiyay qalabka qaliinka kan lagu baara kaliyaha, beerka, wadnaha, ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha. qalabka hadda la keenay isbitaalka Moa Aways International Hospital ayaa ah kuwa muddo badan lagu taamayay waana qalab ka duwan kuwii hore ee u arki jirtay waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibadiisa. Moa Aways International Hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyay goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka. sidoo kale waxaa la soo kordhiyay goob lagu xanaaneeyo dhalaanka iyo waliba goob loo diyaariyay dadka bukaan jiifka ah. Moa Aways International Hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysaa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyay iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyay degdeg ay ku helayaan jawaabahooda. marka waxaan leenahay Soomaaliyeed isbitaalkan ku yaala Nairobi xaafadda Eastleigh 10 Street idin dhisnay waa soo qalabaynay wax walba waa keenay marka idinka ku soo dhawaada waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan wax allaala waxaad danaynayso qalitaan kasto aad danaynayso dhakhaatiir waa joogtaa kuwana way soo socdaan dibadda ka imaanayaan waqti dhow waxyaalaha waxaan ku soo kordhin doonaa waliba ka fara badan oo ka mid ah sida abuuritaanka ilmaha iyo waxyaalo la mid ah. isbitaalka Moa Aways International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Eastleigh gaar ahaan 10 Street. wixii intaas dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داوديال وحطيتو صوت داونيسان مقالبهية استين يدو عد داوديال هبين والبو الجمعة هذا هنو كله عد ستوس داوديال شيء نوسو قد بينو متكمل ده برنامج تحناها يوديرا أو نوجه هذا النوع رمها عافيماتك. برنامج كان وحنا عدكم هدعلنا دكتور علي معو أويس أو كمد تخاطر الصوماليات مدة إن كبدن 40 سنة كجري هؤلاء عافيماتك إن هبين والبو وقت كمد وصهر داودياشي أنا جوا إن هل كان إنه وصو قد بيو معلومات لحرير عافيماتك موضوعي كردون أو قوة تحناها إن هل كان وصو قد بينا داودياشا برنامجكم waxaa caawa inoo soo gabagaboobaya qaybtiisii taxanaha ahayd ee dhankaasi lafaha iyadoo aan ka soo bilownay jilbaha dhabarka caawa waxaynu joognaa mid ka mid ah goobaha aan isleenahay waxa barnaamijkan uu soo xiri doonaa qaybta taxanaha ee lafaha waana garbaha iyo sidoo kale xanuunada dhankaas iyo garbaha ku dhaca kaliya kama hadlayna xanuun kaliya sidoo kale dawadayaashu waxa uu dhakhtarka diyaar u leeyahay in caawa bal inuu soo gudbino sidoo kale waxyaalo muhiim ah oo ah qofka inuu mar walba iska ilaaliyo sida garbaha waxyaalaha ugu muhiimsan oo arada wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan dadka inta badan marka la yareeyahayna waxa jirta waxyaalo badan oo ay dhalinyarada ama dadka markaas xoog leh aysan moodeen inuu dhibaato ku keeni karo laga yaabo inay dhibaato noqoto. waxaan sidoo kale barnaamijkan qaybna ka noqon doontaa marka ay noqoto lafaha waxaynu isku xiri doonaa ilaa iyo jilbaha iyo garbaha oo caawan soo xirino dhakhtarka xitaa inuu inoo dul maro waxyaalo barnaamijyadii hore aynu ku jirin oo laga yaabo in caawa inoo soo kordhiyay. barnaamijkan waxaa taabagelinaysa isbitaalka Moa Aways International Hospital oo dhakhtarka mid ka mid dhakhaatiirta ugu weyn oo halkan nagula joogo Dr. Moa Aways barnaamijkan inta hawada uu ku jirana daawadayaasha ayaan fursad u siin doonaa qeybaha dambe iyaguna sidoo kale inay soo weydiin karaan su'aalaha la xiriira caafimaadka ma aha kaliya lafaha inkastoo mowduucu yahay mowduuc aynu ka hadlayno dhankaas iyo lafaha oo garbaha caawa aynu joogno balse sidoo kale waxaa muhiim ah in Dr. Aways uu isagu yahay mid ku takhasusay xanuunada guud kuwa ku dhaca caruurta iyo sidoo kale xanuunada haweenka khaaska u ah dhammaan daawadayaashu waxay u soo gudbin karaan su'aal walba oo la xiriirta dhankaas iyo hawlaha caafimaadka iyo sidoo kale xanuunada guud. دكتورك وأنا قم هذي علنا وقت يسوي نوصه هوري برامج كان عاود داوديال وحاوسيته صادق داون إنسان مغالبية استيني برتا إنه كلنا هاي فيسبوك جاي سومالي أراد واستين سومالي تي في. دكتور مو أويس دان كسر لابنه صدق كل داودياش وحن أفضل ذني وهل كان عن ستة سيود أراد يوهلي كران مت كمدة معلومات كعاد كل حريري كرتو دكتور مو أويس أو إيميل كا مسدو كلا جيميل كا تختارك ولي هاي oo ah mid haatan shaashada kaga muuqda waana drmoaways@gmail.com oo ah goobta aad ka heli karto
Dr. Mo Aweys haddii aad u baahan tahay. sidoo kale shaashada waxaa kaaga muuqda nambarka aad si toos ah ugala soo xiriiri karto qeybaha dambe marka daawadayaasha aan fursad u siin. Isbitaalka Mo Aweys International Hospital ayuu dhakhtarku ka howlgalaa kaasi oo ku yaalo xaafadda Islii 10 Street dhinaca Moi Airbase waxaana isbitaalkaasi haatan lagu soo kordhiyay mid ka mid ah qalabaha ugu muhiimsan oo ah mid in badan ay ku taamiyeen dadka Soomaalidu inay helaan waana qalabka lagu ogaado qofka xanuunada sida sokorta iyo dhiig karka oo aynu ognahay inay yihiin xanuuno baaritaankooda u baahan in si qoto dheer loo ogaado. Takhaatiirtan ku sugan isbitaalka Mo Aweys International Hospital ayaa waxa ay qofka bukaanka ah ee xanuunada looga shakisan yahay sokorta iyo dhiig karka la siinayaa qalab lagu xireeyo kaasi oo la soconayo muddo 24 saac kadibna la ogaanayo qofkan xaaladiisa sokorta iyo xaaladda dhankaas iyo pressure ama dhiig karka sidoo uu yahay waana qalabada ugu dambe ee haatan aynu soo kordhinay waxa uu soo kordhiyay isbitaalka Mo Aweys waxaa sidoo kale muhiim ah oo la soo kordhiyay isbitaalka oo daawadayaasheen la wadaagayna qalabka dhankaas iyo baaritaanka wadnaha qalabka dhanka baaritaanka wadnaha waxa uu ka mid yahay qalab haatan ah ku dibadda laga keenay kaasi oo lagu ogaanayo xanuunada ku dhaca wadnaha iyo sidoo kale dhankaas iyo daawooyinka rasmiga ay leeyihiin. Isbitaalka Mo Aweys International Hospital sidoo kale waxaa gaar u leeyahay xarunta dadka degdega ama markaasi u baahan inay helaan oxygen oo ah laba qaybood oo ah xaaladda degdega ICU-da iyo sidoo kale xaaladda qofka markaasi u baahan in uu helo kalkaaliye la tacaala xaaladiisa ee loo yaqaan ICU-da labadaasi waxay ka mid yihiin waxyaalaha haatan isbitaalka Mo Aweys International Hospital lagu soo kordhiyay daawadayaashu aynu la wadaagayno. xanaaneynta carruurta waa muhiim sidoo kalena in takhaatiirta carruurta kaliya la helana muhiim gaar ah ay leedahay oo ognahay in carruurta takhaatiirtooda ee loo yaqaan pediatriga iyaguna sidoo kale yihiin kuwa aad ugu baahnaa. isbitaalka ayaa haatan waxa uu sameeyay xarun u gaar ah carruurta oo kaliya iyadoo ay leedahay goobo carruurta ay ku ciyaaraan goobo carruurta baaritaanadooda khaaska ah lagu sameeyo iyo sidoo kale howlaha la xiriira dhankaas iyo daaweynta iyo carruurta iyo hooyadaba. isbitaalka waxaa sidoo kale uu leeyahay dhankaas iyo baarada shaybaarka lagu baaro xanuunada kaasi oo yaalaan qalab casri ah oo lagu ogaanayo. sidoo kale isbitaalka intaad gudihiisa ku jirto ama sidoo kale aad markaasi u baahan tahay adeegyada isbitaalka ahna uma baahan inaad warqad qaadato waxaad si toos ah mar walba oo aad ku geli kartaa goobta markaasi aad u baahan tahay ama dhakhtarka u baahan tahay iyadoo macluumaadkaagu uu yahay mid isbitaalkaasi uu ku wada keedsan yahay dhammaan kombiyuutarada horyaalo takhaatiirta howlwadeenada caafimaadka iyo sidoo kale dhankaasi iyo qaybta shaybaarka markaad u baahan tahay. waa tahay wada masantiin daawadayaal waan idinkaga mahadcelinayaa. sidoo hore barnaamijka idinku sheegnay Dr. Mo Aweys waxa uu isagu haatan u jeestay inuu aado dhankaasi dalka Soomaaliya oo mid ka mid ah isbitaaladiisa ku yaala magaalada Muqdisho uu aadi doono bilowga bishan iyadoona isbitaalkiisa uu ku yaalo degmada Boondere wadada gadaalka marta boostada isgaarsiinta ayuu si toos ugu yaalaa. sidoo kale dhakhtarka marka uu aado dalka Soomaaliya weli waxa uu qayb naga noqon doona barnaamijyada taxanaha oo halkan ayaan si toos ah habeen walba nooga wareysan doona dhankaasi bal xaaladda Soomaaliya iyo caafimaadka iyadoo barnaamijkana mawduuca isbuuca dambe uu noo sii bilaami doono oo ah mawduuca caawan xilina lafaha mawduuc dambe ayaan dib u bilaabi doonaa. Dr. waan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale bahda STN waxay si toos ah kaaga mahadcelinaysaa juhdiga iyo sidoo kale inaad bal caawa oo habeen kale oo qurxoon oo jimco ay dhaxayso aad nagala soo qayb qaadato barnaamijkeena taxanaha ee dhankaasi caafimaadka. bismillaahi raxmaani raxiim. cabdullaahi marka ugu horeysa adiga ayaan kuu mahadcelinayaa markaan intaas ka baxo waxaan rabaa inaan mahadceliyo STN Star TV shaqaalaheedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaanba adduunka dacaladeeda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa fursadan wanaagsan ayna siinayaan aan ummadda Soomaaliyeed tala dhakhtar wacyigelin iyo wax walbaba aan ku siinayno annagoo wada jira. intaas markaan ka baxo waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka dacaladeeda khaasatan reer Kenya oo aniga waqti xaadir aan la joogo inaan toos u salaamo niraado salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dr. waad mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaynaa. barnaamijkan gudaha u gelinaa barnaamijkan ayaan alaaba daawadayaal waxaynu ku bilaabanaa dhankaas iyo howlaha xaaladda caafimaad ee markaasi taagan xanuunada jiro markaasi dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa isbitaal weyn waxaa jirta mar walbo in ay jiraan markaasi xaalada caafimadeed oo taagan dhakhtarka ayaa waxa uu nooga warbixiyaa
markaasi xaaladda iyo sidoo kale cudurrada markaasi inta badan dadka haatan cisbitaalada ay u yaalaan ama cisbitaalada ay ugu yimaadaan iyo sidoo kale bal haddii ay jiraan xitaa xanuuno kale oo laga cabsi qabo in ay dhici karaan waqtiyada soo aadan isbedelka cimilada oo dhacayo qabow oo la geli karo ama sidoo kale waqtiyada kuleelada xanuuno iska imaan kara ayaa jira. Dhakhtarku waxa uu mar walba diyaar u yahay xitaa in uu nala wadaago barnaamijkana ka baxsan oo ah barnaamij kale oo isaguna ku lamaan barnaamijka aynu ku weydiino bal maxay yihiin maalmahan u dambe bal isbuucii u dambeeyay ilaa haatan xanuunada markaasi taagan maxaa laga cabsi qabaa oo ah isbedel haddii cimilada ay ku yimaadaan xanuunada laga yaabo inay dhici karaan. Dhakhtarka ayaanu barnaamijka ku siinaa. Dhakhtar bal soo dhawow mar labaad intaanu gudaha u gelin barnaamijkeena oo maanta daawadayaasha aynu xasuusinayno inaan uga hadli doono dhankaas iyo garbaha ama garbaha xanuunadooda iyo sidoo kale xitaa daawooyinkooda iyo sidoo kale garbaha waxyaalaha ugu muhiimsan in ay ka yihiin lafaha iyo araada iyo arrimahaasi. Bal maalmahan dambe waanu ognahay isbuucii iskuulkan dambeeyay iyo hadda maxay yihiin waxyaalaha bal dhanka caafimaadka ka cusub iyo xanuunada jiro? cabdullaahi mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa markaan dib u soo noqdo adduunka waxaa ka hadlaya yurub weliba khaasatan iyo maraykankaba laakiin yurub haddaan idhaahdo aniga yurub si fiican ula socdaa cudurka corona la yiraahdo ayaa dib usoo laba kacliyey ummadda soomaaliyeed ee degan ingiriiska iyo yurubtaas kalaba kuwaas waxaan leeyahay is ilaaliya cudurkii corona la leeyahay oo weji cusub leh ayaa meeshaasi soo tegey inkastoo la leeyahay kii 20kii oo dadka laayay camal inuuna ahayn oona ahaan karin laakiin haddana lama oga wuxuu cid gaarsiin karo laakiin hadda waxaa la ogyahay cudurka inuu soo galay yurub oo dhan oo hadda weliba la leeyahay cisbitaalka haddii aad tegayso maaskarka waa inaad qaadataa maaskar la-aan cisbitaal ma geli kartid mana kasoo bixi kartid marka yurub oo dhan hadda ay waxay naqanaysaa in layska taxadaro oo laga taxadaro oo maaskarkii haddana soo noqda iyo salaankii iyo hindhisadii dadkii hindhisayay iyo laga dheeraado horta reer yurub dadka dibadaha degan ee soomaaliyeed ayaan toos u sheegaya laakiin waxaad ogaanaysaan maalin walba intaasoo diyaarad ayaa yurub ka timaada nairobi oo dad soomaaliyana yimaadaas dabcan dee soomaaliya iyo halkaanba cudur bay kuu keenayaan dadkan socda dee waa dad u socda dadkooda inay soo booqdaan ba ay soo fiiriyaan ay meelaha yimaadaan oo soo dalxiisaan laakiin haddana ayagoon ogeyn bay wax wataan ay jeebka kugu wadaan aan lacag ahayn ay ku wadaan marka cuduradaas waa imaan karaa waa halkan waa imaan karaa taas waa qodob ka la leeyahay corona tan kale waxa weeyaan tii aan ka hadalay wiigii hore haddana aan ka hadlaynaa roobab ayaa socda roobabaa da-aya hadda roobabkaas waxay wataan wasaq bay wataan ceelasha markay biyaha ay ku shubaan ay mataqaana biyahaas galo waxaa imaanaya wasaq baa imaanaysa shuban biyood baa imaanaya sidaad ogtihiin ayaamahan ugu dambeysay north east hadda waxaa laga sheegay waxa la yidhahda cholera elvibro cholera la yidhahda wasaqow ka imaanaya biyaha wasaqow badi ka yimaadaan waana laysku daartaa oo si deg deg baa laysugu daartaa marka haddii shuban iyo aad aragtaan oo meelahaas ay ka aragtaan ka cararo laftigiisa dhibaatuu leeyahay shubankaas maaragta weliba la sheegayo biyahaas uu ka imaan karaa biyaha wasaqa weliba hadda dhulkaas ayaa la leeyahay meesha wasaqa badan roobka intuu wasaqa weli xoolihii fara badnaay oo abaarihii dhammaadeen oo weli meelaha daadtana ayuu qaadayaa celkii ku shubayaa marka waxaan leeyahay cudurkaas laftigiisa ha laga taxadaro biyaha laiska kuleeyo oo biyaha ha laga taxadaro taasna waa ta labaad. aad baa u mahadsan tahay dhaktari waan kaaga mahad celinaynaa daawadayaashana waxaan filayaa fariimaha muhiimka ah mid ka mid ah takhaatiirta oo halkan ula sugan uu dirayana muhiim ay inoo wada tahay. Daktari bal biyaad ka hadashay waxaa jira howlaha dhanka saadaasha hawada ama dadka odoroso dhanka cimilada isbedelka waxaa laga rajo qabaa baa la yiri inay dhici doonaan roobab xoogan oo ah deerta loo yaqaan El Niño oo kale bal haddii ay dhacdo fariin noocee ayaad daawadayaasha u diri lahayd? cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waa su-aal aad iyo aad u fiican ayaamahan east africa weliba east africa sida kenya soomaaliya
Uganda, Tanzania, Ethiopia kuwaasoo dhan ayaa khatar ugu jira El Nino wax la yiraahdo. El Nino waxa waaye waa cunuga yar markii af Spain af Spaniol weeyaan. El Nino waa dabeelo iyo roob xoog u socda oo dabeel xoog badan oo weliba guryaha qaadaya. waxaa weliba hadda la leeyahay oo aad iyo aad loogu waaninayaa mataqaana xeebaha Soomaaliya waa hadda la sheegay weliba meesha la leeyahay Puntland markii la yiraahdo isku shuban iyo korkaas maaragtay xeebaha oo u dhow maaragtay badda cas u dhow xeebahaas ayaa aad iyo aad iyo Berbera oo northka ay ku taalo meeshaas aad iyo aad loogu waaninayaa. laakiin Southkan koonfurka hoose saas looma waaninayo weli sidii Marka iyo Baraawe iyo Muqdisho. laakiin still isla mar ahaantii waxaa dhici karta El Niñada inay meel kasta qaadato oo meel kasta ay gasho roob iyo badan iyo biyo iyo daad iyo badiyo badna ay soo xoogaysato banaanka u soo baxdo ayaa dhici kara. marka taas lafteeda hadda waa Soomaaliya waxay ka soo saartay mataqaana digniin xoog fara badan ay ka soo saartay shalay. aan u malaynayaa inay ahayd markii laga soo saaray la leeyahay dhulalkaas loo diyaar garoobo arrintaas soo socota. halka Nairobi laftigeeda waa la sheegay meel walba hadda kanaalada waa la furayaa oo la fiirinayaa baxada El Nino inuu yimaado meeshan roobabkaas badan inay yimaadaan daad fara badan ay sameeyaan weliba xaafadaha qaarkooda oo daad qaado ayaa laga baqayaa. marka fariin caafimadeed oo u dir lahayd dadka haddii ay dhacdo. Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa fariinta ummadan Soomaaliyeed la siinayo waxa weeye marka ugu horeysa El Nino hadduu yimaado meel fiican ka gal marka ugu horeysa. marka labaad meel daad soo geli kara ama ka dheerow ha u dhowaanin aad ugu fogaaw. marka saddexaad dhanka caafimaadka waxay keeni kartaa El Nino shuban buu keeni karaa wuxuu keeni karaa pneumonia wax la yiraahdo sanbab xanuun buu keeni karaa wuxuu keeni karaa qandho kaliya xanuun buu keeni karaa. maxaa dhacay dabeel buu wataa xoog badan dabeeshaas haday ku gasho Soomaaliya waxay dhihi jirtay kolba aariyo wax la yiraahdo dabeeshaas haday ku gasho cudur buu keenaya. marka wax dhar fiican ka gasho culays daadadkaasna meel ay iman karaan iyo ka dheerow biyahana iska kuleeyo weli mar kastaba biyaha xataa hadaad tubada ka shubanayso iska gob hadaad cabayso ha cabin. aad baad u mahadsan tahay. waxaan filayaa inay tahay fariin aad muhiim ugu ah dhammaanteenba. daawadayaal aad ku mahadsantihiin daawashada. si toos waxaad inooga daawanaysaan muuqaalbaahiyaha STN sidoo kale bartaynu ku leenahay Facebook STN Somali TV aad inaga daawanaysaan barnaamijka bandhiga habeen walba oo jimcaana diradda aynu ku saarno arrimaha caafimaadka kaasi oo aan aad uga mahad celino barnaamijyada taxanaha ee Dr. Cali Moaweys uu isagu diyaar u leeyahay mar walba. barnaamijkan caawa wuxuu soo xiri doonaa barnaamij taxanaha oo aan lafaha uga hadlaynay kaasi oo aynu kasoo bilownay jilbaha dhabarka maxooga. caawa waxaynu joognaa garbaha oo ah bal lafaha garbaha ku yaalo xanuunada ku dhaco muhiimka sidoo ay u leedahay in qofka uu taxadar dheeraad uu ka muujiyo iyo sidoo kale calaamadaha lagu garan karo qofka in dhibaato garbaha ay ka tahay bas aysan hayn qeybaha kale ee lafaha. waa mahadsantihiin daawadayaal. haddii aad ku sugan tahay Nairobi nawaaxigeeda ka warqab ogow in cisbitaalka Moaweys haatan diyaar uu ku leeyahay qaar ka mid ah mashiinada ama sidoo kale howlaha daawooyinka lagu baaro xanuunada dhankaas iyo wadnaha haddii ay noqoto dhankaas iyo sokorta iyo xanuunka kale loo yaqaano dhiigkarka oo ah mid lagu ogaanayo qofka oo lagu xirayo mashiin ama qalab lagu xirayo si loola ogaado xaaladiisa dhankaas iyo 24 saac sida ay ahayd. daawadayaal barnaamijka ayaynu gudaha u geli doonaa balse marka hore qadar adeega bulshada ah. qaar ka mid ah waxyaalaha muhiimka ah ee aad ka heli karto cisbitaalka Dr. Aradeego aad ka heli karto Moaweys International Hospital. isbitaalka Moaweys International Hospital oo ah isbitaal caalami ah oo heerkiisu sareeyo ayaa mar kale lagu sameeyay qalabayn iyadoo sare loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba. Moaweys International Hospital ayaa la gaarsiiyay heerka level 4 waan heer ka mid ah heerarka ugu sareeya ee isbitaalada guud ahaan dalka ku yaala. isbitaalka Moaweys International Hospital ayaa lagu soo kordhiyay qalabka qaliinka kan lagu baaro kaliyaha beerka wadnaha ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha.
qalabka hadda la keenay isbitaalka Moi West International Hospital ayaa ah kuwa muddo badan lagu taamayay waana qalab ka duwan kuwii hore ee u arki jirtay waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibadiisa Moi West International Hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyay goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka sidoo kale waxaa la soo kordhiyay goob lagu xanaaneeyo dhallaanka iyo waliba goob loo diyaariyay dadka bukaan jiifka ah Moi West International Hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysaa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyay iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyay degdeg ay ku helayaan jawaabahooda marka waxaan leenahay Soomaaliyeed cisbitaalkan ku yaala Nairobi xaafadda Eastleigh 10 Street idin dhisnay waa soo qalabaynay wax walba waa keenay marka idinka ku soo dhawaada waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan wax allaala waxaad danaynayso qalitaan kasto aad danaynayso dhaqaatiir waa joogtaa kuwana way soo socdaan dibadda ka imaanayaan waqti dhow waxyaalaha waxaan ku soo kordhin doonaa weliba ka fara badan oo ka mid ah sidii abuuritaanka ilmaha iyo waxyaalo la mid ah isbitaalka Moi West International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Eastleigh gaar ahaan 10 Street wixii intaasi dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda mahadsanidin daawadayaal intaas waxaan kaga soo laabanaynaa isbitaalka Moi West International Hospital haddii aad u baahan tahay iyo sidoo kale macluumaadka aad ka heli karto sidoo kale daawadayaasha waxaynu xasuusinaynaa haddii aad u baahan tahay Dr. Cali Moi West waxaad ka heli kartaa isagu dhankaas iyo emailka ama gmailka si toos ah uga muuqda shaashada oo ah Dr. Cali Moi West isagoo @gmail.com iyo sidoo kale nambarada shaashada kaaga muuqdo oo ah nambarada si toos ah uga xiriiri karto isbitaalka barnaamijkeenu gudaha u galinaa dhaqtari waan kaaga mahadcelinaynaa caawa waxaanu soo xiraynaa barnaamijka taxanaha ama qaybtii taxanaha ee aynu uga hadlaynaa lafaha caawa waxaynu joognaa garbaha bal haddii aad inoo sii ambaqaado garbaha qaybaha lafaha ee garbaha ku jiro iyo sidoo kaleba ciladaha ku imaan karo garbaha ee sidoo kale laga yaabo inay u gudbi karaan lafaha kale iyo sidoo kale bal talooyinka aad ka siin lahayd daawadayaasha ee dhankaas iyo xaaladda lafaha Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa markaan dib ugu soo noqdo topiga aan rabno caawa inaan ka hadalno garbaha hadda ka hor waxaan ka soo hadalnay jilbaha simanka dhabarka hadda garbahan joognaa waa taxaniyii maaragtay barnaamijkeygii ahaa oo caawa aan ku soo xirayno garbaha waxaa ku dhici kara sidii jilbaha iyo simanka iyo dhabarkaba laba cudur oo kala nuuca labadaas cudur oo kala ah sidaan hor u sheegnay rheumatismka waxa la yiraahdo oo Soomaalida ay u taqaano tufta ama riixda ama rheumatoid arthritis la yiraahdo iyo waxaa jira wax osteoarthritis ama arthritis la yiraahdo oo cudur maaragtay asagana ku dhici kara laakiin cudurkan rheumatismka Cabdullaahi waxa weeyaan difaaca jirkaaga uu ka imaanaya wax aad adiga ka qaban kartid ama aad ka sameyn kartid ma jiro laakiin dawo leeyahay abadiyana dawo abadiyan uu leeyahay aad qaadanaysaa haddii rheumatismkaas ku haya haddii aadan qaadan galbahaagii baa laabmaya farahaagii baa laabmaya adiga dhambaad la laabmaysaa adi waxa weeye dhibaato xoog badan buu ku gaarsinaya maxaa dhacay de difaaca jirka wuxuu ka dhisan yahay 4 nooc buu ka dhisan yahay Cabdullaahi mid waxaa la yiraahdaa EGM baa la yiraahdaa midna EGG baa la yiraahdaa midna EGA baa la yiraahdaa midna EGE baa la yiraahdaa afartaas nooc marka afartaas nooc oo jirkaaga markasta ku socda EGM-ka waxaa la yiraahdo waa mid markasta aad mataqaanaa jirkaaga cudur soo gala ayaa lasoo sii deynayaa askar waxaa jirta 24 saacadood jirkaaga ku wareegaya EGG baa la yiraahdaa markasta saas uu taagan yahay oo ilaalinayaa waa security-ga jirka dhexdiisa kugu jira haddii ninkaas uu dhibaato arko oo infection jirkaaga soo galo wuu qeelinayaa alla soo gaara askara loo soo dirayaa oo xuduudda la leeyahay dad baa soo gudbay soo socda EGM-kaas soo dhacaya labada iskaashanaya marka cudurkii kugu jiray adiga markii dagaalkaas uu bilaawdo waa qandhanaysaa waa jaraynaysaa qandha haysa aad dhehaysaa waa dagaal baa ka socda jirkaaga kan la leeyahay EGA-gana waxa waaye indhahaas cuncun badan aad leelanaysaa EGE-gana waxa waaye allergiga waxa la yiraahdo allergy xasaasiyad ayaan u naqanaa meel kasta uu kaa geli karo ama jirka uu kaa geli karaa ama indhahu kaa geli karaa ama sanka uu kaa geli karaa ama samboor wax la yiraahdo kugu naqan karaa adi EGE-gaasa cirka galaya saas ayaa lagu gartaa waxaad qabto marka dhiigaga la baaro la ogaanayaa
qofkan waxaas buu qabaa saasuu qabaa saasuu qabaa saasaa loo daweynaya saasaa loo daweynaya marka cudurka rheumatismka la leeyahay waxaa isdagaalaya jirkaaga wixii ku jiray EGG-gii askartii markasta socotay EGM-kii baa cadow isku naqanaya markay cadow isku naqdaan lafahaas xidmaha meesha la yidhahda ama kala goosyada ayuu fariisanaya hadduu fariisto waa la laabmaysaa adiga laakiin dawaa jirta alxamdulilah laakiin waa chemotherapy oo qofka la siiyo oo kaga badbaadayo abadiyan oo ammaanka helayo laakiin daawadaas lama dhaafi karo abadiyan weeyaan 10 miligram ba ahaato maalinkii laakiin waa mar kastaaba waa inaad qaadataa rheumatismku waa saas waxaa kuu soo haray osteoarthritis-ka hadda ka horna waa ka hadalnay haddana waa ka hadlaynaa waxaa keenaya marka ugu horeyso cudur adiga aad qabto adan waxbana ka qaban laakiin aad ka qaban kartid laftigaaga aad ka adkaan kartid sida dhiikarka sida sokorta sida sanbabka ma aragtay asmaha wax la yidhahdo haddii wadnaha laga hayo keliyaha haddii la dhaqaayo calcium vitamin D-gaaga hoos u dhacaya waxbaa ka osteoarthritis ama arthritis ku imaanaya kaas adiga haddii dhiikarkaaga aad regular daawadaada u qaadato aad ilaaliso haddii sokortaada toos ah u qaadato cuntooyinkan iska ilaaliso sidii sokorta bacmacaanka bariiska badan baastada badan moofada badan haddii aad yarayso haddii aad iska adag tahay kugu dhici maayo osteoarthritis ma ku imaanayo taasu waa hal qodob oo adiga aad ka adkaan kartid qodobka labaad oo aad ka adkaan kartid oo laakiin say u badan yihiin soomaalida weliba hadda osteoarthritis-ka aad ugu badan yahay culeys fara badan cayil maaragtay daba weyn iyo jirkiiyo weynaada iyo calooshii weynaata iyo jirkaaga kuma qaadi karo adiga jir loogu talagalay 60 kiilo inuu qaado haddii 80 kiilo ama 100 kiilo ama 90 kiilo aad saarto 30-40 kiilo zaa'id ah ku fuula oo 24 saacadood aad xumbaarsan tahay maaha wax hal mar intaa xumbaarta iska dhigayso maaha waa iska xumbaarsan tahay taasna dhibaato ayuu leeyahay dhibaatay keenaysa cayilka laftigiisa waxaa aad iyo aad aan ugu waanayaa ummadda soomaaliyeed inay iska ilaaliyaan cayilka wax fiican ma aha cudur uu leeyahay cudurra fada badan buu leeyahay cayilka ma fiicna sokor buu leeyahay dhikar buu leeyahay lafahaagii buu burburinayaa keliyahu ka haleynaya wadnahu ka haleynaya cayilka wax fiican maaha weliba intaad yar tahay waad ordaysaa laakiin markii 40 sano aad dhaaftid waa fariisanaysaa marka cayilka laftigiisa wuxuu keenayaa osteoarthritis oo garbahaagii baa la gelayaa maxaa dhaca culeys badan baa saaran galagoysidaasaa la gelayaa gacnihii ma laabi kartid gacnihii ma qaadi kartid ma qaadi karo allama wixii shaahi ma cabi karo adaysa osteoarthritis-ka dawuu leeyahay haddii dawadeeda toos loo qaato oo si fiican loo qaato laftigooda way ka baaba'ayaan laakiin soomaalida waxay taqaanaa dhikar haddii qabtid daawadiisa toosaa loo qaataa sokorta haddaa qabtid daawadiisa toosaa loo qaataa asmaha haddaa qabtid waa la isbuufiyaa markasto wadnaha haddii lagaa hayo daawadiisa toosaa loo qaataa laakiin lafaha hal mar in lagaa daweeyo ay iska bogsatid oo cararaan bay rabaan ma suuragelayso lafaha haddii lagaa hayo laftigood daawadood waa abadiyan ma la dhaafi karo intaad fiicnaato bogsatid oo cirbada lagu siiyo aad tiraahdo alxamdulilah waa dhaqaaqi karaa waa socon karaa adhowda daawada iska daysid meeshaada kusoo naqanaysaa taasoo ogow cidkaa celin karta male weliba waa kasii daraysaa waxaa la rabaa cirbadaas haddii lagu siiyo aad lagu socodsiiyo aad dhaqaaqdo haddiiba aad heshid cirbada qof kasta ma samayn karo haddii aad heshid cirbadaas aad ku dhaqaaqdid daawadaada inaad qaadatid markasta sowno dib kugu soo dhaqanin aad ka adkaatid saasaa loo baahan yahay waa tahay doctor aad mahadsan tahay bal garbaha ayaynu joognaa bal maanta maxay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan bal daawadayaashu aynu la wadaagi karno ee la xiriira xanuunada ku dhaca garbaha iyo sidoo kale ma yihiin kuwa xiriir leh garbaha markaanu ka hadlayno lafaha garbaha ku yaalaan weli waxay xiriirsiin ognahay inay lafti dhabarka ay meeshaasi ka dhowdahay xanuunada dhabarka ku dhaco kale saameyn ma ku yeelan karaan dhinaca garbaha iyo sidoo kale bal haddii garbaha oo keliya uu yahay xanuunkii sideen ku ogaan karaa inta badan waxaan ognahay dadku inay yidhaahdaan dhabarka ay xanuunaya isagoo laga yaaba xanuunku inuu yahay mid garbaha keliya ku eg cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan waa su-aal aad iyo aad u fiican garbaha iyo dhabarka iyo simanka iyo jilbaha iyo waa iswataan oo wax iswata waaye laakiin garbaha waxaa jira
oo caawir rabna inaan ka hadalno wax isaga qaas u ah waxa qaas u ah waxa weeye garbaha murqowsi oo wataa oo gooni u ah murqahaas oo cudur qaas ku dhici kara laftigiisa oo ka mid ah rheumatismka oo la yiraahdo fibromyalgia baa la yiraahdaa fibromyalgia macnaheed waxa waaye haddii si kasta raajo loo saaro haddii si kasta loo baaro haddii wax walba la suubiyo mala wax ka soo baxaya male hadda waxaad arkaysaan garbihii baad arkaysaan carjowgaas waad ujeedaa balfiiri qofka bini aadamka wuxuu ka dhisan yahay waxaas balfiiri garabkaas oo mataqaanaa saas u dhaqaaqaya carjow laba carjow kaas aad arkaysaan buluga ah mid kalena waa ka hooseeya labadaas carjow ayaa isku dhaqaaqaya murqahaas oo garab looxa waxaa la yihahdo iyo dhiigagaas meesha ku furan murqaas oo delta edeos la yiraahdo ayaa meesha isku wada isku haya haddii meeshaas ay wax ka dhacaan xirgo na waa jiraan ligamentiga la yiraahdo oo isku hayaan xirgaha isku celinaya iyo bahalkas carjowgaas iyo murqa iyo ay ku dhaqaaqayaan meesha waa laba qoryo isku jira iyo laflooxaas garabka looxa la yiraahdo iyo taas maaragtay kalxanta loo yaqaano ama clavicula afqalaadka lagu yiraahdo acromiumna kaasaa la yiraahdaa laftahaas ayaa isku hayaba lafta meesha dhan garabka dhan bal fiiri waxaasay ku dhaqaaqayaan qafkaagaan sidii robota camal u soconaya bal lafahaas ayaa mucjiza ilaahay ayaa ku dhaqaaqaysaa haddii meeshaas ay wax galaan oo infection uu galo ama inflammation uu galo ama carjowgia uu osteoartritiska galo dhaqaaqii baa halaabaya ma dhaqaaqi kartid kor uma qaadi kartid hore uma qaadi kartid koob shaah ma cabi kartid marka saas ayaad arkaysaa maaragtay garabka meeshaas carjowgaas gudaha ku jiro iyo carjowgii kale oo mataqaan laftii dheereed ee garabkii dheeraa socday labadaas ayaa saa isu dhaqaaqaya waa kaas oo meeshaas aad arkayso labadaasaa dhaqaaqaya markasta carjowgaas iyo carjowgaas kale oo la yiraahdo cartilago oo la yiraahdo articulare ayaa mataqaanaa isku haya marka waxaad ogaanaysaan garabkaas wuxuu leeyahay cudurro badan oo galo cudurrada weliba hadda weliba fibromyalgia aan sheegayo fibromyalgia murqaha garabka gala ayaa mataqaanaa xanuun cid kasta ku baarta ama ay ku fiiriso lama gartaba cudurkaas garbiyaa leega hayaa ma seexan karo habeenkii o dhan ay xanuunaya maalinkii ay xanuunaya buufisaa ku gelaya adiga dhan waa maskaxdaaba laga gelaya waxaad leedahay waxaan waa cudur xuno idili raba waana waa cudur ka mid ah rheumatismka aan la garanayn daawo kasta lagu siiyo markii daawo maskaxiyan lagu siiyo adiga aad tiraahdo cudurkan waa aad iyo aad buu ku dhibayaa lamana daaweyn karo wax yar waa lagaa dejin karaa cudurkaas laakiin mar walba waa inaa feejignaasaa dad aniga kolley badan ilaahay gacanteeda daawo ugu darayaa jira oo ka dawoobay laakiin geedkaas wax laga dawoobo mafna fududa cudurka fibromyalgia la yiraahdo ayaa ugu daran oo garbaha ku dhaca iyo arthritis-ka iyo osteoarthritis-ka markii laysku dardaro aad iyo aad wax u dhib badan weeyaan marka garabkaas aad arkayso oo saa u qaadayso ama saasaa dhehayso ama saasaa dhehayso marka garabkaas laba carjo waaye oo saas u qaadayso murqihii baa ku celinaya saa murqihii ku celinaya saas markaa tiraahdo saasaad tiraahdo garabkaas keliyaad ka dhaqaaqaysaa meel kale aad ka dhaqaaqaysa male shaahiyaan cabaya haddaad tiraahdo garabkiiaad ka dhaqaaqaysaa haddii aad garabkaas aadan ka dhaqaaqi karin shaah saasaad leedahay saas inaa u qabato maana saas ma dhigi kartid marka osteoarthritis hadduu ku galo waa adiga dhan lafahaaga haddaadan si degdeg aadan dhakhtar u helin oo si fiican ku daaweeya aadan u helin maaragtay dawo fiican meesha waad ku khalalaysaa saadaad ku khalalaysaa saasaad dhaqanaysaa finish laakiin su-aashaada markaa dib ugu soo noqdo aad i weydiisay markii hore xagga garbaha iyo lafaha iyo simanka iyo jilbaha way iswataan haddii kaas la qabsado kan kale waa la haystaa oo dhibaataa haysa haddii kan la qabsado kan kale dhibaataa haysa maaha keliya hal meel keliya kulli waxa way kala goosyada dhan baa laga qabsanaya doctor waad mahadsan tahay dib uguma laaban karno oo bal meelihii scientific nameka ama magacyadiis dhankaas iyo takhtarnimada dib uguma sheegi karno laakiin daawadayaasha ayaa barnaamijkan gabagabada ah ee qeybahan dambe ay dhegeystayaasha ama daawadayaasha fursadda ku siinana waxaynu u furi doonaa qadadka tooska ah bal in halkan aad takhtarka ku weydiiso su-aale xiriirta
arrimaha caafimaadka haddii ay tahay mid kugu taagan oo aad dhakhtarka la soo weydiisay hore oo aad jawaab u helina Dr. Cali Macow Caweys oo ka mid ah takhaatiirta Soomaaliyeed muddo 40 sano ka badanna ku jiray howlaha caafimaadka wax badanna ka oga xanuunada dadka Soomaaliyeed inta badan ay la daalaa-dhacayaan sidoo kale waxa la ugu muhiimsan oo daawadayaashina u sheegnana muhiim ah waxay tahay in af Soomaaliga uu yahay ama in luqadda qofka ku fahmi karo uu yahay tusaale haddaan usoo qaadano riixa in qof luqadka lagu sheego riixi waxa ay noqonaysaa in turjumaad ama nooc kale loo tafsiiri karo laakiin qofka su'aalaha dhakhtarka afka Soomaaliga kula hadlaya muhiimadiisu inta badan waxay tahay daawadayaashina xasuusino in qofku uu ku fahmi karo oo aad u sheegi karto luqad markaasi aad muhiim ugu ah dhakhtarkan waxaad weydiin kartaa su'aal walba oo la xiriirta oo ah mid adigu kugu taagan daawadayaasha qadka tooska ah ee daawadayaasha fursad u siinaya ah eber 7 16 42 eber iyo 42 sidoo kale waxaad si toos ah aad Dr. Cali Macow Caweys aad kala soo xiriiri kartaa emailka shaashada kaaga muuqda ee ah drcalimacow@gmail.com daawadayaal dhakhtarka waxaad weydiin kartaa su'aal walba oo la xiriirta caafimaadka qaasatan barnaamijka oo inooga hadleyno arrimaha la xiriira lafaha iyo xanuunada ku dhaco doctor waxaa jirta su'aal kale oo ah su'aal barnaamijkii hore aynu kaaga hayno dhankaas iyo daawadayaasha oo barta Facebook-gan lagu soo reebay su'aashaas waxay ku weydiinaysaa waxaa jiraan daawooyin lagu shubo jilbaha iyo mararka qaar dadka da'da ah lagu shubo daawooyinkaasi faa'iido ma leeyihiin impact ama saameyn dambe ma leeyihiin waa mid ka mid ah su'aalaha aynu ku haynay ee barnaamijka ku saabsan cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aad iisoo gudbinayso oo facebooka dhanka facebooka laga soo diray dadka noo soo dirayna hadda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa laftigood su-aashan ayna weydiinayaan waa jiraa wax la yidhaahdo daawaa jirta lagu shubo oo waa haynaa laftigeed laakiin daawadaas waxa weeyaan 5 jeer ugu yaraan waa in lagu shubaa 6 bilood ilaa 1 sano ayaad ammaanka helaysaa hadda si fiican ii dhageysta haddii lagu shubo 6 bilood ilaa sanad ayay ku hayn kartaa sanadka bacdi waa in lagu shubaa haddana sidii oo kale waa in lagu shubaa daawadaas marka aniga laftigeyga waxaan isku dayaa badi inaan ka dheeraado daawada maxaa dhacay daawadaas haddaad marku shubtid mar kasta waa loo baahnaanayaa waa carjowgii oo daawo ah carjow weeyaan daawadaas dhacaankaas maaragti waa dhacaankii jilibka ku jiray oo lagu shubayo oo kala qaadaya jilbaha marka xoogaa aad ku socotid aad soo garaacdid haddana meeshiisa kasoo biisaya meeshiisa kusoo dhaqanaya ani marka waxaan badi isku dayaa marka ugu horeyso carjowga inta uu hartay in mataqaana aan ka daaweeyo dawo aan ka siiyo oo sidaas maaragtay daawadaas abadiyan qaadada aan leeyahay iska adiga ilaa aad nooshahay qaado haddiiba cudurkaas ku hayo haddii cayilkaaga aad rididna dawo uma baahnaanaysid waxa dhan waad ka haraysaa laakiin haddii cayilkii weli ku saaran yahay ood ku socotid daawadaas xanuun mataqaana anti inflammation waaye maaha xanuun baabiya waa lafaha loo qaata anti inflammatoric aa la yidhaahdaa daawadaas hadaa qaadato waa lagaa degaya wax badan baa kaa degaya marka haddii markii ugu dambeysa oo loo baahdo daawadaasna waa lagu shubayaa marka hyaluron aa la yidhahdaa hyaluron waa lagu shubi karaa weliba jarmankan ka keenay waa la helaya waa tahay su-aasha si daawadihiina weydiiyey haddii uu ku sugan yahay meel ka dhow magaalada Nairobi ama sidoo kale bal isagu uu dirsan karo waxaad ka helaysaa isbitaalka Moa Ways International Hospital oo ku yaala xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ku badan tahay dhankaas iyo wadada 10aad ama sidoo kale 10th Street waa tahay daawadayaashu waxaynu leenahay qadka tooska ayaad nagala soo xiriiri kartaan oo daawadayaasheenu u furnay haatan balse u weydiiyaan su'aal walba oo ku saabsan arrimaha dhanka caafimaadka oo la xiriirta bal dhankaas iyo howlaha caafimaadka Dr. Cali Macow Caweys ayaa diyaar inoo ah bal inuu su'aalahaasi inooga jawaabo isaguna sidoo kale waxaynu uga mahadcelinaynaa in badan barnaamijkan iyo sidoo kale qaybta maanta gabagabada aynu oo taxanayno soo ahayd dhankaas iyo lafaha inooga hadleynay waa tahay waxaa sidoo kale daawadayaashu aynu siin doonaa bal waxyaalaha haatan aadka ugu soo cusboonaanayo waxay noqonayaan dhanka casriga ama teknolojiyadda casriga
cisbitaalka Moi West International Hospital waxa uu leeyahay qaybta shaybaarka iyo sidoo kale qaybta loo yaqaan X-ray iyo ultrasound labaduba oo ah kuwa iyaguna baaritaanka lagu sameeyay ay tahay dhankaas iyo arrimaha ku saabsan gudaha iyo xanuunada caloosha ku dhaco iyo waxyaalo badan oo ilmo qabata ah oo ah kuwa adigu baaritaankoodu muhiim uu ku yahay si loo ogaado xaaladaada caafimadeed bal aynu dib u jaleecno sidoo kale adeegyada muhiimka ah ee aad ka heli karto cisbitaalka Moi West International Hospital. isbitaalka Moi West International Hospital oo ah isbitaal caalami ah oo heerkiisu sareeyo ayaa mar kale lagu sameeyay qalabayn iyadoo sare loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba. Moi West International Hospital ayaa la gaarsiiyay heerka level 4 waan heer ka mid ah heerarka ugu sareeya ee isbitaalada guud ahaan dalka ku yaala. isbitaalka Moi West International Hospital ayaa lagu soo kordhiyay qalabka qaliinka kan lagu baaro kaliyaha, beerka, wadnaha, ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha. qalabka hadda la keenay isbitaalka Moi West International Hospital ayaa ah kuwa muddo badan lagu taamayay waana qalab ka duwan kuwii hore aad u arki jirtay waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibadiisa. Moi West International Hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyay goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka. sidoo kale waxaa la soo kordhiyay goob lagu xanaaneeyo dhallaanka iyo waliba goob loo diyaariyay dadka bukaan jiifka ah. Moi West International Hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysaa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyay iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyay degdeg ay ku helayaan jawaabahooda. marka waxaan leenahay Soomaaliya cisbitaalkan ku yaala Nairobi xaafadda Eastleigh Chain Street idinkaan idin dhisnay waa soo qalabaynay wax walba waa keenay marka idinka ku soo dhawaada waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan wax allaala waxaad danaynayso qalitaan kasto aad danaynayso dhakhaatiir waa joogtaa kuwana way soo socdaan dibadda ka imaanayaan waqti dhow waxyaala waxaan ku soo kordhin doonaa waliba ka fara badan oo ka mid ah sidii abuuritaanka ilmaha iyo waxyaalo la mid ah. isbitaalka Moi West International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Eastleigh gaar ahaan 10 Street. wixii intaasi dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda. waa tahay daawada sidoo kale haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan oo si toos ah uga daawanayso shaashada STN iyo sidoo kale bartaynu ku leenahay Facebook STN Somali TV qadka tooska ah waa eber 716 eber 42 oo aad ku weydiin karto su'aal walba oo caafimaad ku saabsan Dr. Cali Maco Caways. waa tahay isbitaalka Moi West International Hospital oo ku yaalo 10 Street waxyaalaha kale ee muhiimka ah daawadayaasha inuu xasuusinayno waxa kamid ah dhankaas iyo qalabka lagu baaro caloosha ama gudaha lagu baaro iyo sidoo kale sidoo kale iyaduna gadaal iskaga baarana oo loo yaqaan endoscope oo la isku yiraahdo endoscope labadu waxay yihiin qalab muhiim u ah oo haatan aad si toos ugu heli karto haddii aad doonayso dhankaas isbitaalka Moi West ayaa diyaar kula. sidoo kale waxaa muhiim ah dadka isticmaalo caymiska caafimaadka ee qaran ee loo yaqaan NHIF-na waxa uu ka mid yahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee daktarka arada isbitaalka Dr. arada Moi West uu ka howlgala aad ka heli karto. sidoo kale isbitaalkan waxa uu diyaar ku leeyahay takhaatiir iyagu ku takhasuseen xanuunada ku dhaca haweenka oo kaliya oo ah kuwa iyaguna specialist ama sidoo kale loo yaqaan gynecologist oo ah kuwa howlaha caafimaadka ee haweenka oo kaliya ku xilsaaran. caruurta iyo sidoo kale daaweyntoodana waxa ay qaas u tahay goob loo yaqaan goobta caruurta oo ku yaalo isbitaalada oo kamid ah goobta isbitaalka uu ku yaalo dabaqa arada 4 dabaqa ayuu isbitaalku ka kooban yahay. taasi waxay ku micnaynaysaa adeegyada inay sidoo kale yihiin in adeeg walba iyo sidoo kale goobtiisa ay diyaar u la tahay. waa tahay HDU iyo ICU ayaa iyaguna kamid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee dhankaas isbitaalka diyaar uu ku leeyahay iyadoo haatan si toos ah loo qalabeeyay. waa tahay daawadayaashu inta aynu bal dhankaada aan ka sugi doono dadkooda aan haatan u furnay oo ah nambarka shaashada kaaga muuqda ee ah eber 7 Dr. waxaan bal dib ugu laabanaynaa arrimo kale oo muhiim ah oo markaynu ka hadlayno caafimaadka iyo lafaha. waxaa sidoo kale jirta inta badan dadka dhalinyarada ah marka ay xoog badan yihiin dhalinyaradu in badan ma dareemaan xanuunada ku dhaca dhabarka laakiin waxay soo baxaan dadka markii shaqooyinkii iyo maaragtay dad ay sii noqonayaan. waxaa inta badan jirta in dadka dhahaan dhabarka wuxuu igu xanuunaa shaqooyinkii aan soo qaban jiro awgood. marka intii cisbitaal iyo howlo iyo takhtar uu aadi lahaa waxa ay ka doorbidaan in lagu istaago
ama uu isticmaalo daawooyinka kale iska caadiga ah ee laga yaabo xanuun baabiyada oo ah kaliya markuu la xanuun qabto marka maxay tahay talooyinka aad siin lahayd dadka iyagu markii ay da'da ay yaraayeen ama waqtigii shaqada ay ku jireen laga yaabo inay soo xamaali jireen oo dhabarka ku soo qaadi jireen haddana da' joogto oo laga yaabo in cilada dhanka lafaha ay qabaan ama dhabarka ama garbaha noqoto marka talooyinka iyo sidoo kale bal caafimaad ahaan waxyaalaha aad kula talin lahayd cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa haddee runtii dadkaas xamaaliga qaadaya alaabta culeyska qaadaya waxay la mid yihiin kuwa maaragtay birta qaada ay la mid yihiin kuwa birta qaada iyo kuwa orda ama kuwa balooniga cayaaraya waa isku mid waxba ma dhaamaan kan balooniga cayaara ee ordaya 24 saacadood 34 sano hadduu gaaro waa duq lafihii buu ka duqoobaya bes waaye ma ordi karo ma socon karo dawo u baahan yahay mar kasto kan culeyska qaadaya kaasaa ugu daran kaas degdeg buu noqonayaa maxaa dhacay de wuxuu qaadayaa 50 kiilo 100 kiilo oo saacaas uu qaadayaa horuu ka tuuraya laakiin intii heerkaas uu ka qaadanayo madaaliya uu ka qaadanayo gold medal intuu ka qaadanayo horta waxa waaye waa inuu wax badan exercise badan suubiyaa oo mar walba isku dayaa inuu qaado ilaa intuu keenaya waa dhigaya ilaa intuu keenaya waa dhigaya haddana kuwaas laftoodu waa isku mid mataqaanaa kuwa orodka badan kuwa ma aragtay ordaya ma aragtay inta 1500 2500 oo meter ama ordaya ama kan 40 kilometer ordaya marathon la yiraahdo kulligood 34 sano haday gaaraan reerkii ugu salaan wayaan bes waaye ma ordi karaan mana or socon karaan marka haddii qofkan xamaaliga la leeyahayna oo 50 kiilo intuu dhabarka saarto markasta qaadaya waa isku mid dhalinyarada laftigood waxaan leeyahay haddii mataqaanaa xataa aad tegayso gym aad samaynayso waxaa culeyska la qaadaya iska ilaali gymka waxaa loogu talagalay murqaha in lagu dhiso xoogaa yar in la socdo mataqaanaa biskuleetiga soconaya la fuulo oo mataqaanaa calooshaas mataqaanaa sit upka waxa la leeyahay aad samayso calooshaas ay kaaga ba'do calool ayna ku imaanin okay waay laakiin culeys weyn la qaado oo ah ma aragti kaas ayaa dhibaato badan garbaha iyo dhabarka iyo jilbaha u keenaya waa tahay doctor waad mahadsan tahay jawaab aad wanaagsan waa tahay waxaan sidoo kale inooga cudur daarinaa dhanka daawadayaasha qadkayna haatan si toosa ugu furan yahay eber 716 sidoo kale bartaynu ku leenahay Facebook oo aad haatan si toos ah uga daawanaysaan ayaad daawadayaal waxaad nagula wadaagi kartaan su-aashaada ku saabsan bal dhakhtarkaad weydiin lahayd ku saabsan arrimaha caafimaadka daawadayaasha naga daawanaya shaashadana sidoo kale waxa aad fursad u haysataa in Dr. Cali Macow Caweyse isagu halkan kugu sugan yahay oo su'aal walba oo ku saabsan caafimaadka mar walba jawaabteeda diyaar uu ku leeyahay waxaan sidoo kale bal ku sii soconaynaa barnaamijkan caawa aynu soo xirino dhakhtarku waxa uu diyaar u yahay inuu daawadayaasha bal su'aalaha ay soo weydiiyaan isagu uu sidoo kale halkan uga jawaabo numberkan waxaa si toos ah aad daawadayaal uga helaysaan barta shaashada ah ee aad inaga daawanaysaan waxaa jirta su'aalo kale oo dhakhtar Facebook-ga jawaab anada fariimo lagu reebay fariintan waxay ka hadlaysaa arrimaha dhiigkarka iyo sidoo kale dadka ku dhaco waxaa jirta mar uu gaaro heer qofka qayb ka mid ah ama lug iyo gacan uu ku dhufto u baahan yahay qofkaasi oo kala physiotherapy iyo in deliig loo sameeyo haddii uu baahan yahayna su-aashu waxay ahayd qofka goorme ayuu u baahan yahay ma markuu ku dhuftaa mise markii daawo laga siiyo oo muddo uu ka joogo uu u baahan yahay in baaritaan arada loo sameeyo jimicsi iyo physiotherapy cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aasha lafteedu waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah horta stroke weeyaan waxa ku dhacaya qofkan markuu dhiigga 220 uu gaaro ayaa waxaad qarka u saaran tahay inuu stroke ugu dhaco stroke-gan wuxuu jecel yahay badi 9 saac habeenimo 8 saac habeenimo inuu yimaado 9 saac habeenimo 8 saac habeenimo cid ku og male cid ku garan kartana male adi waa jiiftaa markuu kugu dhufto maba hadli kartidba mana soo kici kartid subaxii lagu arkaya adoo meesha yaala haddii
markuu kugu dhufto ad 48 saacadood gudaheed haddii lagu helo dib baa lagu soo celin karaa sidaadii baad soo noqon kartaa haddii laakiin ay 2 maalmood iyo 2 beri ay ka gudubto ay ku dhaafto kabacdi cudurku waa kugu harayaa dhankaas aad beeshay wuu kugu harayaa laakiin dibadda meesha aniga hadda muddo badan aan kasoo shaqeeyey weliba dalka Jarmanka isla marka ahaantii baa la bilaabayaa jimicsiga dhaqdhaqaaq la bilaabayaa inaad dhaqaaqdo in mataqaanaa gacantii asaas dhaqanayso in la dhaqaajiyo lugta la dhaqaajiyo adiga lagu socodsiiyo lagu dhaqaajiyo sidii degdeg lagu soo celiyo rehabilitation la yiraahdaa rehabilitation waxa waaye intaadan khalalin ana isku dhamaanin in lagu soo celiyo sida uu dhaqsaa badan marka su'aashaada aan dib ugu soo dhaqdo waxa waaye markii adiga ay waxyaalahaas camal ay kugu dhacaan waa in markiiba daliiga la bilaabaa masaajka la bilaabaa oo markiiba daawada laga siiyaa dhiiga la dejiyaa karka la dejiyaa mataqaan dhiigaas xinjir weeyaan oo meesha fariisanaysa xinjirtaas la dhalaaliyaa sida uu dhaqsaa badan haddii lagu siiyo lagu dhalaaliyo waa dhamaatay waa soconaysa waa tahay dhegeysta ayaa qadka ku jira ayaan fursadda siinayaa hello STN hello waa tahay daawadahaasi waan ka xunnahay qadka ayaa ka heliyay daawadayaal waxaad si toos ah u soo beegsan kartaa eber 716 42 oo aad ku weydiin kartaan su'aal la xiriirta dhankaasi caafimaadka Dr. Cali Macawiis oo halkan inoogu sugan doctor waan kaaga mahadcelinaynaa qaybihii dambe ayaan ku sii shaqeynaa barnaamijkeena doctor waxaa jirta lafaha aan ugu soo laabto su'aal aan rabo inaan ka weydiiyo inta badan lafaha ma isku xiran yihiin oo qofka xanuunka ka dareemaya dhabarka ma laga yaabaa xanuun laga yaabo in dhabarka ama laf dhabarka ah dhib ku keenay in qofkaasi uu jilbaha uga la socon waayo oo maxoogii uu saameyn ku yeesho ilaa garbihi uu saameyn ku yeesho ma dhici kartaa in cillad ku yimaata ama garabka ama maxooga ama dhabarada jilbaha saameyn ay ku yeelato isku xirka lafaha Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan waa laftigeeda muhiim haa laf dhabarka markii la yiraahdo waxay ka dhisan tahay qoortaas oo ah maaragtay 7 laf saa isugu saaran dhabarka marka waxaa ku soo haray xaggan saabka ah ama saableyda la yiraahdo 12 xabay ka dhisan tahay dhabarka hoose markii loo dego 5 waaye midka kale 5 kalena dibka weeyaan dibka ilaa dabada ay galaysa intaas baa wax saas isugu xirxiran waay haddii laftaas hoos laga qabto korna dabcan jug baa gaaraysa ilaa waa is ilaalinaysaa is ilaaliskaas lugihii bay saameynayaan sibankii bay saameynayaan adiga dhan bay ku saameynayaan marka dabcan waa laf haddii mar dhabar laga hayo kuwa kale waa saameynayaan inkastoo weli garbaha aad ka dhaqdhaqaaqaysa laakiin haddana xanuun waa jiraa waa dareemaysa doctor aad mahadsanta waan kaaga mahadcelinayaa 1 bisha October nagu soo aadan dhakhtarka waxa uu ku wajahan yahay dalka Soomaaliya halkaas oo uu tagi doono mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo ah isbitaalka Moaways International Hospital isbitaalkaasi waxa uu ku yaala degmada Boondere godada gadaalka marta boosada iyo isgaarsiinta sidoo kale dhakhtarka waxaan fursad u siin doonaa gabagabadii barnaamijka aniga oo mar kale uga mahadcelinayo fursadda uu daawadayaasha iyo annagaba na siiyo arrimaha caafimaadka inooga hadalno dar waan kaaga mahadcelinaynaa waxa ay muhiim inoo ah sharafna inoo ah aadna aan kaaga mahadcelinaynaa mar walbo inaan ka hadalno mawduucyo ku saabsan muhiim u ah daawadayaasheena doctor waxaad ku wajahan tahay bishan dalka Soomaaliya bal sidoo kale fariinta aad u diri lahayd daawadayaal badan ayaa jira oo haatan laga yaabo in Muqdisho iyo naga daawanayaan dhankaaga Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa markaan dib ugu soo noqdo su-aasha aad weydiinayso horta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan reer Kenya iyo reer Soomaaliyaba iyo reer dibaddaba waxaan leeyahay maanta waa 22 ilaa bisha 30 hadduu alla idmo waxaan joogaa magaalada Muqdisho magaalada Nairobi xaafadda Eastleigh 10 Street qof alla qofkii daneynaya wuu noo imaan karaa waa 8 maalmood waxaan joogaa 10 Street Eastleigh Kenya Nairobi wixii bisha 1
hadduu alla idmo oo nafta ilaahay noo daayo kowga bisha October hadduu alla idmo waxaan joogaa magaalada Muqdisho boostada isgaarsiinta gadaasheed Mau Aves International Hospital ama International and General Clinic kusoo dhawaada leeyahay reer Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya oo dhan iyo kuwa dibadda haddii noo imaan rabaan sidii hadda ay noogu yimaadaan Nairobi dad fara badan baa noo socda oo yimaada xagaasna waxaan leenahay kusoo dhawaada meel kasta aad joogtaan ama Nairobi ama meeshaas Garowana waa aadi doonaa iyadana fursadeeda waa siinaynaa gobolada dalkana waxaan rajaynayaa meel kamid ah inaan soo taabano aan tagno laftigeed aan siino ummadaas aan soo safri karin aan soo dhaqaaqi karin inaan anagu tagno aniga hal qof baan ahay dadka meesha nagu sugayana waa badan yihiin marka kulligood ma soo wadadaan safri karin oon haysanin baa jira qarashkaas faraha badan oo lagu safro oo meel lagu dego ama ayna haysanin annaga gurigooda ugu tagi doona insha Allah دكتور aad mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaynaa haddii dhakhtarka sidoo kale aad u baahan tahay inaad bal aad isagu la xiriirto si qaas ah waxaan ku siinaynaa oo halkan shaashada kaaga muuqda gmail-ka aad si toos ah ula soo xiriiri karto dhakhtarka oo ah drcali.moawais@gmail.com daawadayaal aad mahadsantiin waan idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina ku aadan barnaamijkan oo ah taxanaha muddan inoo soo socday oo aynu arrimaha caafimaadka uga hadalno habeen walba oo jimcaha barnaamijka bandhiga واتاي داوديال waxaan mahad u celinayaa Dr. Cali Macow oo barnaamijka la qayb qaadanayay iyo sidoo kale dhankaas iyo fikradiisa ku aadan bal iyo sidoo kale dardaaranka uu bulshada siiyay anigu Cabdullaahi Xuseen Tawan ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya farsamada waxa uu ahaa Bernard tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah sidaas nabadgelyo isbitaalka Mau Aves International Hospital oo ah isbitaal caalami ah oo heerkiisu sareeyo ayaa mar kale lagu sameeyay qalabayn iyadoo sare loo qaaday tayada dhakhaatiirta iyo qalabkaba Mau Aves International Hospital ayaa la gaarsiiyay heerka level 4 waan heer kamid ah heerarka ugu sareeya ee isbitaalada guud ahaan dalka ku yaala isbitaalka Mau Aves International Hospital ayaa lagu soo kordhiyay qalabka qaliinka kan lagu baara kaliyaha beerka wadnaha ICU iyo qalab kale oo aad muhiim ugu ah caafimaadka dadweynaha qalabka hadda la keenay isbitaalka Mau Aves International Hospital ayaa ah kuwa muddo badan lagu taamayay waana qalab ka duwan kuwii hore aad u arki jirtay waana qalab intiisa badan laga keenay dalka dibadiisa Mau Aves International Hospital ayaa sidoo kale soo kordhiyay goob loogu talagalay inay ku umulaan haweenka sidoo kale waxaa la soo kordhiyay goob lagu xanaaneeyo dhalaanka iyo waliba goob loo diyaariyay dadka bukaan jiifka ah Mau Aves International Hospital waxaa sidoo kale aad ka helaysaa qalab baaritaankiisii ugu dambeeyay iyadoo baaritaanada dadka lagu sameeyay degdeg ay ku helayaan jawaabahooda marka waxaan leenahay Soomaaliye isbitaalkan ku yaala Nairobi xaafada Eastleigh Chain Street idinkaan idin dhisnay waa soo qalabaynay wax walba waa keenay marka idinka ku soo dhawaada waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan wax allaala waxaad danaynayso qalitaan kasto aad danaynayso dhakhaatiir waa joogtaa kuwana way soo socdaan dibadda ka imaanayaan waqti dhow waxyaala waxaan ku soo kordhin doonaa waliba ka fara badan oo ka mid ah sidii abuuritaanka ilmaha iyo waxyaala la mid ah isbitaalka Mau Aves International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafada Eastleigh gaar ahaan 10 Street wixii intaas dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda